annagu waddankan waxaan ka rabnaa isbeddel dhab ah, isbeddel wax ka beddela dhaqaalaha, isbeddel wax ka beddela amniga, isbeddel wax ka beddela awood qaybsiga, isbeddel wax ka beddela mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. madashan cajiibka oo ay ku sugnaayeen in ku dhow 5,000 oo shacab ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumadda muddada ay jirtay iyo geedi socodka dowladda federaalka Soomaaliya ee higsiga dhow iyo kan fog ee ku aadan horumarka dalka. waxaana ku sugnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. hadafka ugu weyn ee xambaarsaneed munaasabadan ayaa ah in shacabka Soomaalida ogaadaan waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda iyo higsigeeda shaqo si ay ula xisaabtamaan iyadoo la dhaqan gelinayo qorshaha xukuumadda ee isla xisaabtanka ku dhisan horumarinta danta guud ee qaranka Soomaaliyeed. xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa munaasabada ku soo bandhigay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay muddada ay xilka hayeen. inaan la soo wareegno saxiixda mashaariicda horumarinta midowga Yurub ee Soomaaliya siinayaan kaasoo tirada guud xisaabta aan la soo wareegin oo aan mas'uul ka noqonay tahay $249 milyan oo aan saxiixda bishii shanaad 9keedii sanadkan waa markii ugu horeysay. mashaariicda horumarinta kale lacag ka badan €100 milyan ayaan saxiixnay. heshiiskaas muhiimadiisu waxa uu raysaaray markii ugu horeysay 1979 ka bacdi heshiis noocaas aan la galo dowladda Jarmalka oo kii ugu horeysay. waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo baadidaas 27 sano ummadda Soomaaliyeed ka maqnayd oo ah maamulka hawada Soomaaliya in laga maamulo dibadda waddanka inay soo afjarantay ayaa rabaa inaan ugu bishaareeyo ummadda Soomaaliyeed. wasaaradda amniga gudaha waxay ku guuleysatay dhamaystirka tirakoobka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda sirdoonka, xeerka la dagaalanka argagixisada iyo xeerka xakameynta hubka oo hadda labada baarlamaanka ay yeeleen dargino u sameysay sidii loo aqoonsan lahaa baasaboorkeena sharafta leh. wasaaradda amniga gudaha waxay ku guuleysatay 26 sano kadib inay dib u howlgeliso xarumihii xuduudaha hay'adaha socdaalka. xarumaha ay howlgelisay waxaa ka mid ah magaalooyinka xuduudaha Doobley, Beled Xaawo, Doolo, Ceelberde iyo Balanbalan. waxa kale oo noo suurto gashay haddana wasaaradda nahay inaan ka shaqayno inaan hay-adihii xukuumadda iyo organisationadii kale ee qabin jiray lacagaha dowladdu leedahay aan kala soo wada wareegno oo ay ku soo wareegeen wasaaradda maaliyadda ku soo wareegeen. waxaa kaloo xusid mudan maanta oo 8 bilood halkaan joognay in qof kasta oo dowladda u shaqeeyaa mushaaradiisa qaatay. talagalkuna yahay inay noqon doonto 12 bilood oo ugu horreeyey intaan dib u soo noqonnay ee dowladda dib u dhisnay 12 bilood oo iska soo wareegay in qof waloo dalkan ka shaqeeyo xaq u leh mushaariisa qaato. alxamdulillah siyaasadda qaran ayaa noo hirgashay markii ugu horeysay oo uu dalkan yeesho taasoo haddii allah wadal ogolaado marka faafinta rasmiga lagu soo bixiyo aan dib ugu soo celin doono dhalinyarada. qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ka qayb gashay munaasabada ayaa soo dhaweeyay waxqabadka muuqda ee xukuumadda bogaadiyayna barnaamijka shacabka loogu soo bandhigayo waxyaabaha u qabsoomay xukuumadda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo munaasabada ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlayay guulaha xukuumaddu ay gaartay muddadii yarada ay jirtay iyo halka ay higsanayso ayaa xusay inay ka shaqayn doonaan dhamaystirka dastuurka qaranka, gaarsiinta dalka xisbiyo siyaasadeed oo looga gudbayo hanaanka ku dhisan qabiilka, daadejinta federaalka, dhismaha ciidan qaran oo leh tayo iyo tiro intaba. waxaan ugu nimid halkan anigu aan ra'iisul wasaare ka noqday iyadoona koonka dowladda aanay lacag ku jirin. sanad marka uu dhammaado waxaan u gudbaynaa iyadoo in ka badan $30 milyan ay ku jirtaa koonka dowladda. waxaad ogtihiin waa markii ugu horreysay ee xukuumadii muddo 3 bilood keliya ee baarlamaanka ugu gudbisay in ka badan 15 sharci oo mid walba dalka wax ku oolaya.
in la dhiso guddi madax bannaan waa idinkugu soo celinayaa guddi madax bannaan ka madax bannaan dowladda iyo xukuumadda oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo dhaqaalihiisa haysta oo xaq u leh inay cid walba daba galaan soona xiraan cidda qiyaamaysa xoolaha dalka waa markii ugu horraysay waddanka waan miisaaniyadda ku soo darnay dhaqaale ka badan 5 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso iskuullo lacag laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed anaa idin sheegayaa sidaas daraaddeed waxaan ka shaqaynaynaa inaan dhammaystirno dastuur inaan dalkan u gudbinno axsaab in la dhammaystiro federaaleynta laakiin in la soo afjaro xilligii koox yar oo aniga iyo Khadiijo iyo Dalxa aan ka midnahay ay dalka iyaga keligood hoggaamiyaan 4 bisha iyo 5 bisha waxaa la soo bandhigi doonaa warbixin daahfuran oo xukuumaddeedu ay ka shaqaynaysay oo ka hadli doonta ciidamadeenna qalabka sida tiradooda xoogooda dhibkooda dhaqaalahooda waxa ay haystaan iyo waxa ka maqan mudane xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in hadafka ugu weyn ee ay ka leeyihiin hoggaanka dalka isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ay tahay in la dhiso Soomaaliya sharaf iyo karaamo kana madax bannaan qabiil iyo dawarsi caalamka isla markaana ka fog astaanta xun ee musuqmaasuqa cid kasta oo doonaysa Soomaalida cusubna ay saaxiib la noqon doonaan oo siyaasadda aan rabnay inaan dalka ku hogaamino waxa uu yahay koow si loo soo celiyo sharaftii xorriyaddii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed horta inaan tuugsiga ka baxno si aan tuugsiga uga baxno inaan ku soo noqonno dunida si aan dunida ugu soo noqonno inaan la nimaadno maamul wanaag si aan maamul wanaag ula nimaadno waa idin sheegay dariiqa la rabo in la maro waa inay shacab iyo dawladda gacanta isqabsadaan diyaar ma u tihiin Soomaaliyeed cidii rabta marka inaan gaajada ka baxno cidii rabta inaan soo celinno xorriyaddeena iyo sharafteena cidii rabta inaan qabyaaladda ku bedelno qarannimo iyo sharaf cidii rabta inaan xanuun u adkaysano sanad ama 2 sano laakiin aan dhisano jidadkaas iyo sarahaas oo kale cidii rabta inay tiraahdo awoodda Soomaaliyeed waxa iskala shacabka Soomaaliyeed ma aqbalayno dalaaliin ku kala dhigirta shacabka iyo dawladda cid intaas diyaar u ah doonaysa waxaad haysataa saaxiib la yiraahdo farmaajo khayr barnaamijkan lagu soo bandhigay waxqabadka xukuumadda iyo geedi socodka dawladda ee xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa noqonaya markii ugu horeysay oo ay sameysay dawlad Soomaaliyeed waana mid dhiirigelinaya isku xirka shacabka iyo dawladooda Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka Muqdisho